Maxkamadda Meleteriga gobolada bariga Somaliland ee fadhigeedu yahay magaalada BURCO ayaa maanta xukuntay khamri tiro badan oo cadadkiisu dhan yahay 485 dhalo oo khamri ah. Waxay sidoo kale maxkamaddu xukun ku riday 3 dambiile oo lagu soo qabtay khamri. Sidoo kale waxay maxkamaddu xukun ku riday gaadhigii siday khamrigaasi. waxaana xusid mudan in dadka lagu soo eedeeyay isla markaasina xukunkaasi ku dhacay ay kamid ahaayeen askari ka tirsan ciidanka qaranka Somaliland. sidoo kale waxa si weyn uga qayb qaatay soo qabashada khamrigani ciidanka booliska gaar ahaan saldhigga dhexe ee magaalada BURCO. waxaana xukunka maxkamaddu u dhacay sida tan ku gubaynaa ku burburinayna khamri dhan 485 dhalo. waxa xukuntay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolada bariga. khamriga waxa ka howlgalay ciidanka booliska saldhigga dhexe khadar khamriga waxa lagu qabtay 3 eedeysane dambiilayaal oo laba ay lahaayeen mulkiyada midna uu ahaa gaarigii lagu soo qaaday oo kireeysay. maxkamaddu waxay ku xukuntay dambiilayaasha min 3 sano oo xarig iyo min 3 milyan oo garax xalxayada. waxa kale ku xukuntay gaariga qiimihiisii in 5% ganax. waxa ku jiray oo hogaamiye ka ahaa nin la yiraahdo Cabdiqani oo ciidanka qaranka ah. taas ay keentay maxkamadda ciidanka keentay ciidamada qalabka sida. waxaan uga digayaa intaan maqlaynaha maqlaan ciidanku inuu khamriga balaa kala baxo ninka lagu qabto saambowta. maanta ay taariikhdu tahay 30 bishii koobaad 2018 waxaa maxkamadda ciidamada iyo xeer ilaalinteeduba halkan ay ku gudanayaan waajib sharci oo qodob sharci ah oo ku binaysan xeerka mukhaadaraadka ee xeer 2020 waxaa halkan maxkamaddu u timid in lagu burburiyo khamri lagu soo qabtay dad shacab ah iyo ciidan wada socda. ayay maxkamaddu ku soo xukuntay xukunno ciqaabeed oo kala duwan. xukunnada waxaa ka mid ahaa in la burburiyo khamrigii lagu soo qabtay dadkaas eedeysanayaasha ay maxkamaddu ku xukuntay oo dhan 485 litir. khamriga waxaa la soo geliyey magaalada BURCO ee gobolka Togdheer waxaana lagu baabiinayay dadka muwaadiniinta ah. arrintaa waxaa ka gurmaday oo ka howlgalay ciidanka booliiska oo u naxaya dadkooda shacabka ah. waxaan u mahadnaqayaa saldhigga dhexe Khadar Faarax iyo ciidankiisa. waxaan u mahadnaqayaa bulshadii naga gacan siisay aafadan hortaala ka bulisaan waa shaqadayada wax maalin walba aan qabano. waxaan uga digayaa bulshada muqaadaraadka waxa weeye maalin walba lagu baabiinayo la soo gelinayo ee caadada laga dhigtay inay ka fogaadaan. Xabiib Ciga Xasan, telefishinka Universal, magaalada BURCO.